Warsoo dhawaada asxaabta, maanta waxaa idin hayaa qiso ku saabsan tuug iyo aabbo wadaad ah. Fadlan intaan fiidiyowga sii dhexgelin fiidiyowga like noo share gambaraalkana furo fiidiyowgana ii share gareey. Waa mahadsan tahay. Aan sii dhexgelin qisadeena maanta. Sheekadan waxay ka hadlaysaa dhacdo ku saabsan tuug iyo aabbo wadaad ah, waxaana ku jira fariimo muhiim ah oo ku saabsan saamaxaadda waa sifada sheekada. Tuugu waxa uu ahaa qof caadaysto inuu xado, waxa uuna jeclaa inuu wax walba, xitaa waxyaabo yaryar sida lacagta carruurta iyo boorsooyinka, xitaa ukumaha shimbirta. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbihii wadaadka waxa uu safray bas, gadaashiisana waxaa fadhiyay tuugii. Tuugu waxa uu arkay lacag $1 oo ku jirta jeebka aabbaha, wuuna kala soo baxay. Wuxuu arkay jeeb si qarsoodi ah ayuu u xaday lacagta, laakiin aabbaha ayaa dareemay isla markiiba farcelinta aabbaha. Halkii uu xanaanan lahaa ama uu booliiska u geyn lahaa, aabbihii wadaadka waxa uu yiri, hagaag wiilow, waxaa laga yaabaa inaad lacagtan u baahan tahay si ka badan aniga. Dadkii baska saarnaa waxay la fajaceen farcelinta tuuga aad ayuu uga xumaaday falkaas, wuxuuna joojiyay inuu mar dambe wax xado. Fariinta sheekada waxa ay muujinaysaa saamaxaadda iyo naxariista in ay waxtar ka badan leedahay ciqaabta. Mararka qaar saamaxaaddu waa caqli ugu fiican, waxa ayna beddeli kartaa qofka qalbigiisa iyada oo muujinaysa naxariis iyo hoosaysiin uu naftiisa hoos u dhigayo. Okay asxaabta, waa idin sii salaamay. Inta ka kulmayna qisooyinkan iyo kuwo kale oo ka qurxoon, waxaan idin leenahay sidaas iyo khayr badan.